Wasaarada Qorshaynta iyo Hormarinta Qaranka ayaa maanta shir isugu yeedhay ururada maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee ka hawlgala gobolka togdheer. kulankan oo ka qabsamay magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka xogeenka Wasaarada Qorshaynta iyo Hormarinta Qaranka Injineer Xuseen Ibraahim Buuni, barsaabka xogeenka gobolka togdheer, agaasimaha waaxda hormarinta ee Wasaarada Qorshaynta iyo Hormarinta Qaranka Mudane Cabdi Fataax Suldaan Aadan. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay isku duwaha Wasaarada Qorshaynta ee gobolka togdheer iyo agaasimaha waaxda hormarinta ee Wasaarada Qorshaynta iyo Hormarinta Qaranka, waxaana ay ka hadleen ujeedada kulankan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa shirkan imika halkan aynu ku qabanayno ujeedadiisa waxa weeye in marka u horeysa dawladda cusub ay meeshii timi oo wasiiradii iyo ay arrimaha ay soo booqdeen gobolada iyo arinta u yimaadeen halka ugu horeysa waxa weeyaan waa isbarasho aanu isbarano aanan markii hore tegin xafladihii xilalka lagu kala wareejinayay iyo waxaas markaas waxa weeye halkan waxaanu iska baranay hay'adihii maxaliga ahaa iyo kuwa internationalka ah wixii joogay gobolka oo wixii fariin ee wasiirku haweenku uu gudbinayay xagga wasaaradda iyo xagga dawladda ka socday ayaa halkan shirkaas ujeedadiisu ahaa. waxaanu halkan kulan ugu qabanay NGO-yada hadday noqoto local iyo hadday noqoto international kuwii maxaliga ahaa iyo kuwii caalamiga ahaaba. kulankani wuxuu daarnaa oo ujeedadiisu ahayd runtii kulan hordhac iyo isbarasho iskugu jira iyo sidoo kale inaan halkan uga gudbino oo farno wixii wasaarad ahaan iyo siyaasadda wasaaraddu waxay tahay horumarku haddii aan loo daadejin gobol ilaa degmo wuxuu noqonayaa mid aan micno badan ku fadhiyin maadaama Wasaaradda Qorshaynta Qaranku uga mas'uul tahay qarankani daadejinta iyo horumarka guud ahaanba. waxaan jeclaysanay inaan la kulanno hay'adaha ka shaqeynaya heer gobolna. waxaanu kala hadalnay oo waxyaabaha ugu muhiimsan ee halkan ka wada hadalnay kamid ahaa sidii mashaariicda ay fulinayaan loo waafajin lahaa qorshaha horumarinta qaranka. waxaanu ka hadalnay sidii NGO actiga iyo loo ilaalin lahaa sharciga wadanka. waxaan u sheegnay hay'ad kastaba inay runtii ay tahay waajib saaran in ay la shaqeyso maamulka gobolka oo barsaabku hogaaminayo. wax badan baa la isweydaarsaday runtii aad baan iyagana uga mahadnaqaynaa warbixinihii ay noo soo jeediyeen iyo wada shaqeynta ay la leeyihiin xafiiska gobolka iyo dawladaba in la xoojiyana waa ku kala tagnay. barsaabka xogeenka gobolka togdheer ayaa waxa uu wasiirka ku soo dhaweeyay gobolka togdheer. waan halkan marka hore gobolka ku soo dhaweynaynaa uguna mahadnaqaynaa maadaama uu yahay wasiiradii xukuumadda cusub magacawday inuu maanta halkan shirkan ugu qabto NGO-yada wadaniga iyo kuwan wadaniga ahaynba asigoo ka duulaya wasiirku dardargelinta iyo waxay qabanayaan NGO-yadu si uu ogaado wixii ay wasaaradda kula soo ballameen aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wasiir. gabagabadii shirkan waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka xogeenka Wasaarada Qorshaynta iyo Hormarinta Qaranka, waxaana uu wasiirka xogeenku ka hadlay doorka ay Wasaarada Qorshayntu ku leedahay hirgelinta iyo dabagalka mashaariicda ay fuliyaan hay'adaha ka hawlgala gobolada. sidoo kale wasiirka xogeenku waxa uu ka soo qaybgalayaasha uga mahadceliyay sida fiican ay u soo ajiibeen kulankaasi. waxaan maanta halkan kula kulannay hay'adihii maxalliga ahaa iyo kuwii caalamiga ah ee ka shaqeynaya gobolka togdheer. ujeedka kulankuna wuxuu ahaa isbarasho iyo kala xog qaadasho nidaamka wada shaqeyneed ee Wasaaradda Qorshaynta iyo Hormarinta Qaranka iyo hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga maadaama hoggaan cusub iyo dawlad cusub wadanka timid. Wasaaradda Qorshayntuna tahay gateway u dhaxaysa hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo dawladda. marka runtii qodobo door ayaynu maanta wadaagnay in mashaariicda ay qabanayaan ay waafajiyaan barnaamijka horumarinta qarankan uu leeyahay NDP2 National Development Plan 2. sidoo kalena waxaanu la wadaagnay ama ugu baaqnay inay isu dheelitir ku sameeyaan mashaariicda ay ka fulinayaan gobolka oo aanay ku salaysnaan caasimadda
deegaanada iyo degmooyinka gobolka hoos yimaado oo dhan in la wada gaarsiiyo mashaariicda oo isu dheelitir mashaariic lagu sameeyo mashaariicda laga hirgelinayo guud ahaan gobolka sidoo kalena waxaan ugu baaqnay in ay la dardargeliyo hirgelintii oo anagu leenahay hirgelintiisa NGO Act xeerkii NGO-yada waxaan sidoo kale ugu baaqnay in mashaariicda ay ka hirgelinayaan gobolka inay ka soo diiwaan geliyaan xafiiska wasaaradda qorshaynta ay ku leedahay gobolka togdheer oo uu joogo iskugu si wasaaradda qorshaynta iyo qaranku ay uga midho dhaliso doorkeedii ahaa qiimeynta iyo dabagalka mashaariicda laga hirgelinayo guud ahaan gobolka wada shaqayn wanaagsan baan xafiiska iyo xafiiska wasaaradda qorshayntu ay siduwaha iyo xafiiska gobolkuna runtii leeyihiin waynu xoojin doonaa waxa runtii tabasha ee xafiiska hay'adaha iyo guud ahaan xafiiska barasaabku ay runtii in la wadaageen aragtiya waxaan rajaynaynaa inuu runtii kulan midho dhal la inoo noqon doono kulankani aad iyo aad baan iyagana uga mahad celinayaa hay'adaha maxaliga iyo kuwa caalamigaba hawlaha samafal iyo kaalmo iyo horumarineed ee guud ahaan gobolka ka qabteen ama ay ka qabanayaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu